والصلاة والسلام على رسول الله. aad iyo aad u mahadsantihiin runtii maanta dood xiise leh ayaa ka dhacday meesha tan doodu haddii la xumaynayo waa xumaanay laakiin dood ujeedada loogu talagalay xambaarsan ayaa ka dhacday meesha waxa ugu horeeyay hubka ayaa laga hadlay hubka ilaa iyo hadda cidda iska leh lama sheegin ilaa iyo hadda dawladdeennii xukuumaddeennii madaxtooyadeennii amniga hay'adaha amniga cidda hubkaas iska leh lama sheegin saraakiilaa nooga dhimatay ciidanaa nooga dhintay dad shacab ahaa nooga dhintay ilaa iyo haddana lama sheegin muxuu ahaa cidda iska leh marka waxaan ka rabnaa in cidda iska leh hubkaas ay sheegaan markaa kadib ayaan ogaan karnaa ama aan ka doodi karnaa ama aan samayn karnaa gudoomiyuhu guddiga u saaray horta sideedaba shaqo guddi ah leeyahay guddi looma saaro baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay 15 guddi 15ka guddi ee baarlamaanka isku kooban yahay guddi walba wax buu qaabilsan yahay aniga hadda waxaan ka tirsanahay guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ayaan ka tirsanahay guddiga gaashaandhigga jira waxay ahayd in labada guddi oo dadka soo qaado oo yiraahdo isla shaqeeyo hubkaas soo ogaada ama soo baara oo yiraahdo ahayd ad hod committee waxaa loo sameeyaa guddi meelaan guddi qaabilsaneen waxaana guddi ka tirsanayna loo sameeyaa marka haddii baarlamaanka qoyr sharci guddoonkiisa uu siiga socdo haddii muxuu ahaay wax walba ay fasahaad ay wadanka uu ka dhacayo dhibaatada ay leedahay baarlamaanka xasanadiisa ku xigtay waxa laga hadlo xasanada baarlamaanka waad arkayseen gudoomiye madaale gudoomiyaha gobolka ayaa baarlamaankii Soomaaliyeed wiligii aniga daahira wiligii xafiiskiisa irid intaan ka galay ma gelin madaale hayra daahir jeeso wuu soo galay wiligii xafiiskayga hayra in xildhibaanada uu ku sheego kuwa asaga dhuuni ka raadinayay kuwa asaga wax ka raba inuu ku sheego waa sharaf dhac baarlamaankaas u geystay insha Allah guddiga arrimaha gudaha wasiirkiina waa maanta wuu joogay waa u sheegnay si degdeg ah ayaan baarlamaanka u horkeenaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo arrimaha dagaalada shacabka dhaxdiisa ka dhacay iyo barakacinta runtii wax loo qaadan karo maaha in baarlamaanka muxuu ahaa in shacabkiyo la barakacinayo aan fiirsan waad arkayseen waxa ka dhacay meesha la yiraahdo muxuu ahaa dabdamiska waxa ka dhacay dad shacab ah banaanka la dhig war dadka shacabka dagaaladii sokeeyay dagaaladii shabaabka ayay dadka soo barakacooyaan ee caruurtooda iyagoo dusha ku wata ay imaanayaan in maanta xamarkii joogan la barakaciyo kii dhulka shabaabka lagu dagaalamayo laga soo barakaco waa shacabkeennii ayaa daalan marka waxaan rajaynayaa in shacabka loo turo dawladda federaalka siiba xukuumadda inay u turto oo ay ogaadaan in muxuu ahay barakac kale oo ka socdo mar haddii meeshii lagu dagaalamayo laga soo barakaca xamarna laga barakaco xagee la aala marka shacabka Soomaaliyeed loo turo aad u mahadsantiin ay قال حلي بركات